لابنو عرفت على سوق هذا كودي ماشي مقالة ذو تكوي على بلكنا ماشي ذو يوم لما أي ما كان تلقينا waxaan safar dalxiis u aadnay xuduudaha iska galaan Mareykan iyo Canada mid kamid ah runtii dalxiiskan wuxuu ahaa mid aad u qurux badan meelo badan ayaana booqanay dalxiiskan wuxuu isugu jiray dhowr noocyood waxaan hogaaminayay dhalinyaro urdiimada runtii wuxuu ka koobnaa dalxiiskanu mid marna diinta lagu faafinayay ama markaas camalada aan sameeynay ama activities ka aan sameeynay waxa kamid ahaa in aan quraan akhrino in la wardiyo waxyaalo badan oo diinta ku saabsan marna wuxuu ahaa maaweelooyinka kaleeto oo maalinlaha la sameeyo sida hadda inaan kubad ciyaarno inaan dabaalano iyo inaan waxyaalo badan sameeyno sida markab inaan ku dalxiisno madin ka soo hordhici doono muuqaalka ayaa wax walba ku wada arki doontaan isla socod wanaagsan ugu horeen waxaan ka bilownay inaan kubadda ciyaarno maadaama markii ugu horreysay aan fresh ahayn kadib kubaddii baan waxaan soo ciyaarnay muddo hal saac si fiican bay nagu soo dhamaatay si qurux badan bay nagu soo dhamaatay markuu banoonigii noo soo dhamaaday oo aan soo haraadnay soo daalnay oo quraacdii aan cunay wax walba ay naga soo baxeen ka bacdi waxaan wadanay talaagadan cuntada ee nagu jirtay kadibna waan qadeynay qadar runtii aad iyo aad u fiican baan cunay kadibna waxaan aadnay markabkiina geyn lahaa dhinaca xuduudka dhinaca kale noo goysin lahaa ee dhinacaasi Mareykan isla socod wanaagsan markaan waxaan 50 kilomitir u soo drive gareynay meeshii aan ka raaci lahayn doonta oo dhinaca xuduudka dhinaciisa kale noo gudbisiin lahayd dhinaca Mareykan doontuna waa doon runtii aad u weyn waan tusin doonaa gudaheeda iyo sida ay tahay isla socod wanaagsan
waxyaalaha la yaabka laha waxay tahay hadda maqli jirtay gaaladu adduunkana way ku raaxaystaan aakhirana ilaahay baa wixii ku dhici doona waxa arkaysaa hadda dad badda dhexdeeda guryo ugu dhex yaalaan hadda waa centerka badda dhexdeeda ah bay guryo ku leeyihiin markaan isweydiinana guryahan sidee loo dhisay dad markaas meesha aad u yaqaanay waxay noo sheegeen waxaan in ahaayeen dhagax ilaahay ugu talagalay meesha ku taalay markii hore oo guryo laga dul dhisay waxaan kale isweydiinayna waxa kamid ahaa dadkaanu sidee bay mar walba usoo maartay magaalada usoo baxaan u imaadaan waxa lagu leeyahay doon baa u imaatay mar walba ay rabaan in magaalada aadaan sida arkaysaan hadda waxaan nimid dhinacii kaleeto oo xuduudka Mareykan iyo Canada iska galaan waxa u jeedaan calanka Mareykanka halkaan waa meesha checkpointiga markaas la isku baaro sidaan hore idinku sheegay safarkan dalxiiska waxaa waday urur diimeed runtii safarkanaga waxaan ku soo khatimnay quraan akhris ma sha Allah qof walba wuxuu akhriyay markaas 2 juz ilaa 1 juz qof walba intuu awooday waxaan ku soo khatimnay safarkanaga quraan akhris ma sha Allah runtii wuxuu ahaa safar aad cajiib ah ma sha Allah Allah barakeeyo dhalinyaradaas ugu dambeyn waan casriyeynay waxa weeyaan safarkanaga waa noo soo dhamaaday markaana waa waqti dambe waxay noo tahay 1 saac oo habeenimo qorraxda wali ma aysan dhicin maadaama marka maalinka uu dheer yahay habeenkana uu yar yahay